daro dibadal boqol maxallina 200 tilaabo meel u jirta madaxtooyadeeni inay 20 saacadood ay ka dagaalamaan qolihii nabadiidka ee madaxtooyada lagu daas fududeeyay qasab waay fil roos dadkii galay waa loo fududeeyay ma aha wax hal maalin dhacay xataa ma aha inta bamba la tuuray ayuu hal qof jeebka ku soo qaatay asa hoteelka uu la galay maalintaas cid laga gaday iyo cid aaminayso malaha waa in lagu xisaabtamaa waa in siday tahay muxuu ahay noogala warbixiyaa waa in hay'adaha amniga ay hor yimaadiin mudane gadoomiye oo ay noo faahfaahiyaan waxyaabaha dhacay waxyaabaha ka hoskareyn kara arinta xildhibaanada Soomaaliyeed ayada oo meel 200 tilaabo u jirta madaxtooyadeeni ay nabadiidka galayaan in baabuurta xildhibaanada dhexdooda qarax laga raadiyo waa nasiib darro weyn runtii iyo sharaf dhac baabuurka xildhibaanka wuxuu la mid yahay oogadiisa iyo muxuu ahay gurigiisa ayuu la mid yahay qodobka 70 ee xasanada xildhibaanada farqadiisa labaad ayaa dhigaysa in la yiraahdo muxuu ahay waliba dawladii xukuumadda dhexdeeda laga soo qoro warqad la yiraahdo xildhibaanada hala baaro dabcan warqadaas adiga gudoomiyaha waan aragtay waxay inaad ka jawaabto waay waxaan ku dooranay waxa kamid ah mudan gudoomiye inaad sharafta xildhibaanada difaacdo waxyaabaha baarlamaanka sumcadiisa ku dhacay ee xukuumadda xageeda ka yimaaday inaad naga difaacday ayaa ahayd waxyaabaha aan ku dooran mudan gudoomiye barnaamij waxaa jiri universal ka baxo oo la yiraahdo faaliyaha qaran kuuma foorreeyay farta isku fiiqin adiga fartaha isku fiiqin adiga fartaha isku fiiqin annaga adiga kuma haysano laakiin haddii aad waajibaadkaada gabto mudana waa ku arkayna annaga indahayna way taagan yihiin waxaan u jeednaa madmadow fara badan waxaan aragnaa muxuu ahay waxyaabo sumcad xumeynaya baarlamaankaan aragnaa mudane gudoomiye waxaan ka codsanaynaa inaad feejignaan dheeraad aad samaysid waxyaabaha baarlamaanka lagu soo kufaayay markii amniga lagu soo fushin inaad arintaas ayada baarlamaanka aad ka difaacdo aad iyo aad maasantiin wax badan aan rabay inaan ka hadlo laakiin xildhibaano badan aqoon mudane gudoomiye waxaan hadalkayga ku soo koobaya baaritaanka warqadda askariga la siiyay ee la yiri xildhibaanada baabuurkiis waa dembi waa khiyaano oo dastuurka meel looga dhacayo dastuurka ha loo soo noqdo cid kasta oo ay qusay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.